دكتور محمود أحمد oo ku magac dheer Dr. Shiine isla markaasina caan ku ah daaweynta xanuunada ku dhaca indhaha isla markaasina maalmihii u dambeeyay ku sugnaa magaalada Burco ayaa habeennimadii xalay ahayd hoteelka Daale magaalada Burco kaga qayb galay kulan aqoon kororsi ah kaasi oo ay soo qaban qaabsay jaamacadda Alpha University fariicida magaalada Burco gaar ahaan ardayda kulliyadda caafimaad kulankaasi ayaana doctorku ku lafaguriyay saameynta ay tiknoolajiyadu ay ku leedahay aragga indhaha iyo sidoo kale waxbarashada iyadoona ardayda jaamacaddu halkaasi ay ku weydiiyeen su'aalo kala duwan kulankaasi aqoon kororsiga ahna waxa ka qayb galay mas'uuliyiinta degmada Burco xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka qaar ka mid ah isuduwayaasha wasaaradaha gobolka Togdheer iyo sidoo kale macallimiinta iyo maamulka jaamacadda Alpha ugu horreyntii waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Alpha Professor Cabdiqani Ibrahim Xasan iyo sidoo kale mas'uuliyiinta kala duwan ee jaamacadda ilaahay baa mahadle inoo suurtageliyay caawina kulankan muxaadarada inoo qarsoomo waxaan si gaar ah u mahadcelinayaa doctorkeena weyn oo runtii naga aqbalay in uu uga faa'iideeyo dhalinyarada gobolka Togdheer mowduucan aadka u muhiimka ah oo saameynta tiknoolajiyada ay ku leedahay indhaha waa mid laba aflo ardaygu dhinaca uga faa'iideysto ayuu ku xidhan tahay waxaan ku baraarujinayaa dhalinyarada runtii in xagga cilmiga aqoonta looga faa'iideysto tiknoolajiga maadaama aragiina runtii uu saameyn ku yeelan doono insha Allah taasaan insha Allah ku booriyo dhalinyarada doctorkana insha Allah waxaan rajaynayaa in wax fara badan ay ka faa'iidi doontaan cabashada ugu badan ee Afrika gaar ahaan wadamada Saxaraha ka hooseeya cabashadooda ugu badani upcoming years ama sanadaha soo socda 10 sano soo socda indhaha ay noqon doontaa taasna tiknoolajiyadan aan xad kala hayn iyo qaabkan turid la'aantan indhaha ayaa ka koowa doctorkan insha Allah ta'ala caaw mowduucaas inoo soo diyaariyay aynu kala bixi doonaa hadii Ilaahay ka dhigo waa mowduuc saameyntiisu taagan tahay waxaan rajayn lahaa in kelmadaadka dhakhtarku inoo oran doono aad loo weeleeyo waxa weeyaan jaamacadda mar labaad iyo mar saddexaad doorto waa u mahadcelinayaa waxa weeyaan aqoonsi wadaarsan noocyada karana ina badiyaan runtii waxa weeyaan way ku amaanayeen sharafna oo ku leeyin doctorku waxa weeyaan uga faa'iideeyay waxa weeyaan aqoontiisa inala wadaagay Dr. Shiine oo runtii waxa weeyaan wax qabad weyn oo arkayno runtii goolka fuliyo waxa weeyaan aan uga mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad oo jaamacaddan aad baan uga hambalyeeynaa in barnaamijyada noocan oo kala si fiican waliba looga faa'iideysto dhibaatooyinka ugu badan ee maanta in haystaanay koow ka yihiin waxa kale waliba sii jirto sii dheer in doctorada indhaha ku takhasusayna ay gobollada bariga aad ugu sii yar yihiin marka loo eego iyagoo guud ahaanba Somaliland ku yar iyo haddana riskiga faraha badan ee mar walba indhaha soo waajahaya ay ka mid yihiin mobilada lagu saamaleeyo hore loo soo sheegay dhibaatooyinka ugu badan ee waliba imka sii kordhaya waxa ka mid ah marka xaafadda tagto ciyaalkii yaraa mobilka baadan guriga gaadhi kala wareegaya waxa laga yaabaa hooyadu iyadoo hawlaheeda qabsanaysa in iskaga mashquuliso ay iska daawadaan iyagoo isla toban jeer wax ka yara daawada inay halkaana caqabad kale waxaad arkaysaa ciyaal yar oo aan shintirba gaadhin muraayada sita waliba digriga lambarkii ugu dambeeyay waa dhibaatooyinkeena haysta bay ka mid tahay runtii tala badan oran mayna inaynu wacyiga uu doctorku inoo soo jeediyay qaadano doctorka Ilaahay khayraad siiyay waliba shaqooyinku ay waxa kamid ah tabarucaad Dr. Shiine in badan baan runtii maqlay waa kulankii aragtidii ugu horeysay caaw halka marka soo fariistay waan meelbaan Dr. Shiine markii dee la wareysanayay qaasig ninka meelahan ka eegeeyo dhalinyarada laakiin waa nin weyn oo odaya waa nin mudakara waa nin warkiisu la soo gaadhay oo in badan caafimaadka gaar ahaan indhaha dadku ka mahad sheegteen balkan wallahi dhibaato ku haya runtii bulshada dhibaato ku haya waxyeeladiisa waxtarkiisa waxyeeladiisa ka badan dalkeena markuu soo gaadhay kuwa yar xaq hore u fadhiya baan anigu leekaayo aniga iyo afar aan ku jira baa isqaas burcaw mobilka haysanay saddexda habeenimo lagu gaaraa afarta lagu gaaraa waxbarashada lafteedu hoos buu dhigay indhaha nuurkeeduna hoos buu dhigay isqaas nimo badan oo dhalinyaro halka fadhiyo waxa laga yaabaa wasiirku ka fiicna fiiqnaadaba idinna waxa weeyaan waxa tiin jiilkii soo koreeyay mustaqbalkii ummadda idinka ah idinku saa noqotaan ayaa ummaddu biri oo kaanaysa haddaan noqotaan jiilkii mobilada
وحويان ما قياسا مستقبلك ما فكريسان وحما ميل فوق وحكما إيجيسان جاست قفك مركم موبايلكم مشغول سيهاي نولوشي سنة وحويان أنت عم تضافيسه لكن حلو بهاي إنه قفك مستقبل لي هاي وفكريه ومدو فكريه ونفجس فكريه إيركس فكريه مركا فكر كيو ماشي كبحياة حتى وحياة موبايلاتو كانان أم هردلانتو كانتو حكمدا قفك فكر كيو كلمة يوا قفك فكر لهين سو نولانا يا مركا حيوان كفك ودورانيو عبد الرحمن عمار تلفزيون كيونيفرسال برعو